بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah qaybtiisii koobaad aan uga hadli doona xuquuqda aadanaha iyo dawlad wanaaga inta barnaamijkan imtixaanaha ah uu socdo waxa in la socodsiin doontaa anigoo ah Fartuun Cali Xuseen Fartuun Milano inta ay barnaamijyadani socdaan waxa aad ku daawan doontaan warbixino iyo waraysiyo aynu uga hadli doono xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya iyo dawlad wanaaga aynu ku bilaabano warbixin guud oo ka hadlaysa xaaladda bini'aadanimada ee dalka Soomaaliya iyo sida hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay u xaliyaan dhibaatooyinkaas waxaana inoo soo diyaariyay wariyeena Xasan Maxamed Nuur oo ka tirsan barnaamijka bulshada Soomaaliyeed waa kuwa ay ragaadiyeen dhibaatooyinkii laga dhaxlay dawlad la'aanta xadgudubyada dhinaca bini'aadanimada waxay saameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka caruurta dhalinyarada iyo dadka waaweyn malaayiin qof ayaa ka barakacay deegaanadooda kadib markii ay adkeysan waayeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dagaal beeleedyo iyo kuwa u dhaxeeya dawladda al-shabaab qaraxyo iyo abaaro ku dhuftay qaybo ka tirsan gobolada dalka waxaana dadkan intooda badan ay u qaxeen dalalka dariska la ah Soomaaliya halka qaar kalena ay ku dhibaataysan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka iyagoo aan helin xuquuqaha asaasiga ee bini'aadamka warbixin ay daabacday hay'adda u doodda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch oo soo baxday sanadii 2016 waxa lagu qiyaasay dadka ku barakacay gudaha dalka inay gaarayaan ilaa 1 milyan oo qof kuwa oo ku nool xaalado adag oo dhanka bini'aadanimada ah Faisal Ahmed Nuur waa madaxa hay'adda u doodda xuquuqul aadanaha ee Somali Aid Foundation taa oo ka howlgasha qaybo ka tirsan gobolada dalka waxa uu ka warbixinayaa xaaladaha dhanka bini'aadanimo ee Soomaaliya barakaca dhowr xaaladood baa dadku u soo barakaceen waxa ku kalifeen waxyaabo fara badan ka mid ah waxa ka mid ah meelaha hadda al-shabaab ka haystaan oo ma taqaana iskuulaadna aan lahayn ciyaalka dugsigana lagala cararayo loolana soo cararayo meelo ayna joogin wiilashan yaryar al-shabaabka si ay u helaan ma taqaana dadkaas nolol iyo waxbarasho yaa midaas horta way koosgareynaysaa midda labaad waxa waa Soomaaliya inta badan ma laha ma taqaana xagga waxbarashada ya aad gaab ugu ah taasna waxay keenaysaa in waalidkii soo qaxo oo xiriyaha qaxootiyada oo ama meelaha Kismaayo caasimada waaweyn yimaadaan si ilmaha waxbarasho ugu helaan taasna waxay keenaysaa waxbarasho la'aanta guud waqtigan hadda xadarka ay bini'aadanimo ee dalka wallahi aad buu u yaraa kiran tahay sababtoo ah anagu waxaan ahayn local NGOs fakal leer hadda aad buu u yar yahay sababtoo emergency laga baxay waxa laga development marka development inoo bareefa sector iyo dadkaas aad u shaqeeyay hadda shaqooyinka xaaladda bini'aadanimo dadka waxa caaway waa dadkooda iyo lafahooda laakiin hadda UN gaab weyn oo ku yimid fan fiican oo ka yimaadana ma laha wixii ka yimaadana Nairobi iyaga ku reebta waxa dadka soo gaaran dad waa wax aad u yar waa lacag aad u yar waxa laga yaabaa 34 milyan ya Soomaaliya soo gaadhay in la dhaho waxa Soomaaliya soo gaaray in 1 milyan inana ka badnayn dumarka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee la kulma tacadiyada dhanka bini'aadanimo waxaana loo geystaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin kufsi xuquuq dhinaca jinsiga ah iyo inaysan helin kuwa la mid ah xuquuqaha ay helaan ragga gaar ahaan dhinacyada shaqooyinka iyo mas'uuliyadaha kale ee dawladda sida ay sharaxayso Xaliima Faarax Godane oo ah gudoomiyaha ururka u dooda xuquuqda haweenka SWSO ka oo fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo run ahaantii intii ay burtay dawladdoodii dhexe waxaan isleeyahay muddo badan way liidatay macnaha xuquuqdooda way liidatay muxuu ahaa sidii ilaahay u qoray xitaa looma fulinaynin oo maaragtay aydiis uu soo dejiyay looma fulinaynin waxa weeyaan inta badan waxyaabihii xaq u lahaayeen ma helaan waxay xaq u leeyihiin inay noolaadaan bini'aadanimadooda iyo dadnimadooda la xurmeeyo waliba xurmo gaar ah ay diinta siisay gabdhaha islaamka ah ayay siisay gabdhaha Soomaaliyeed marka ma helaan waxyaabihii ay xaq u lahaayeen ma helaan waxa arkaysaa inkastoo dawladdu jirto haddana ma xakameysna tacadiyadooda ma xakameysna shuruuc way jirtaa macnaha oo caalami ah oo macnaha ku sheegayso laakiin shuruucdaas caalamiga ah xitaa ka fikir ahaan aniga waxaan qabaa dadka soo saaray xitaa kuma dhaqmaan ayagii soo saaray xitaa kuma dhaqmaan oo macnaha waxaad arkaysaa gabar dadweynaha kamid ah iyadana saas oo kale xuquuqdooda ugu tumanayd arkaysaa kaba soo qaad macnaha gabdhaha Soomaaliyeed oo kale gabdhaha Soomaaliyeed
waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan wax walba oo horumar ah oo macnaha dalka horumarkiisa ah dhisidiisa ah siyaasadiisa ah maxay ahaydey inay ka qayb galaan xaq u leeyihiin waxaad moodaa sanadihii hore inay hadda dhaamaan oo oleyn badan kadib iyo ay heleen macnaha waxyaabo intii hore ka yara roon inay heleen laakiin sidii looga baahnaa ma ahan waxaa arkaysaa hay-adaha oo kale waxaa arkaysaa wasaaradaha dawliga ah oo waxaad ku arkaysaa gabar ama labo aad ku arkaysaa oo ka shaqayso gabdhihii kale jaamacadaha ka baxayna ay yihiin macnaha kuwa guryaha iska joogo oo aan maxay la siinaynin waxaa arkaysaa hooyo foolatay oo aan la haysanin meelaha qaar meelay ku umusha aan haysanin xaq waxay u lahayd oo dowladda ugu leedahay inay hesho muxuu ahaa meesha ku umuli lahayd meeshii MCH-ka ay la xiriiri lahayd markay ureeda tahay waxaa kaloo arkaysaa gabdho burburkii hooyadood macnaha kaalmeynaya oo waxbarashadii ka tagtay xaq waxay u lahaayeen inay waxbartaan maynan baranin haddana cid hadda oo u maqan oo leh maxay ahaday waxaa jirta wax la dhaho waxbarashada dadka waaweyn xitaa xaq maaragtay maynan helin waxaa kale oo jirta haweenka Soomaaliyeed in tacadiye ka dhan ah loo geysto meel ay joogaanba sidii hadda macnaha ka dhacday gobolada qaar oo kale ka dhacday in tacadiye loo geysto xaq waxay u leeyihiin in la dhowro in la helo xeerar muxuu ahaa dowladda Soomaaliya ay ansixisay oo lagu xakameynayo tacadiyada ka dhanka ah haweenka haddii marna ayna jirin wax dastuuri ah oo xeer ah oo maxay ahaday u gaar ah ayaga oo muxuu ahaa lagu xakameeyo tacadiyada maadaama dadka ka nugul yihiin hilib bisil ay yihiin waxa weeyaan intaan hadda maamulada dhismeen aan joognay xitaa dalka Soomaaliya gobolada qaar waxaa ka dhacay tacadiye loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed oo arkayso telefishinada la soo dhigayo website-yada ku jiro yaad arkaysay xaq waxay u leeyihiin gabdhahaas inay helaan daryeel dowladda marka ay hoos joogaan ama maamulka hoos joogaan inay daryeel ka helaan in qareen u dooda la helo in ay helaan maxkamado dhibaatooyinka loo geysto qofkii dambilaha ah la saari karo waa arkaysaa maamulada goboleedyada qaar maxkamadahooda xoog uma dhisna qofka xitaa muxuu ahaa dambilaha ahaa xabsi lagu xiro oo lagu hayo iyo qorshe habaysan ma lahan marka waxaan isleeyahay walow ay dhaanto sida hadda leeyahay sidii hore xilligii qabaa'ilada lis eryanay ay dhaanto haddana waxaan isleeyahay wax badan baa u baahan daryeel oo gabdhaha Soomaaliyeed oo inay xaqooda helaan ah wax badan baa yaa ka maqan baan isleeyahay oo ay u badan tahay inay helaan shuruuc dastuuri ah oo ayaga ilaalinayso maadaama horeyba aan usoo sheegay in xuquuqda insaanka ilaahay dadka u soo abuurtay oo ku sheegay ayadihiisa xaq waxay u leeyihiin oo dhan oo lagu dhowray oo diinteena ay xafidayso haddana waxaa moodaa dadkii insaanka ah inuusan ku dhaqmaynin insaan markii lagu dhaho waa ummadoo dhan waay oo ilaahay abuurtay oo dhan waay ama gaalaada muslim ha aado qaaradu raba ha joogo laakiin waxaa moodaa waxyaabo afka laga qoro inay yihiin oo xuquuqul insaanka marka la yiraahdo waa la qoraa laakiin ku dhaqankeedii bini aadanka ku adag waxaana leeyahay dadka dad islaam weeyaan waxaan sheeganaynaa islaamnimaan sheeganaynaa meelaan joognaba haddaan nahay dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan xaq dhowr bay isku leeyihiin dadka bini aadanka xaq dhowr bay isku leeyihiin inuu xiriir fiican ka dhaxeeyo inuu helo qofka waxyaabihii uu xaq u lahaa asaasiga ah oo dhan inuu maaragtay uu helo marka haddii dadku ay raacaan sharciga islaamka sida uu u kala xadiday iyo waxyaabaha uu ku cad haddii ay raacaan waxaan isleeyahay qofka xuquuqdiisii inuu helay baan aaminsanahay midda kale toole waxaa inta badan la dhahaa macnaha gabdhaha siyaasadda xaggeeda waa laga hadlaa waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan waxay xaq u leeyihiin in la siiyo doorkooda bulshadeed ay kaga qayb galayaan horumarinta dalka iyo dhisidda dalka caruurta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee lagu xadgudbay xuquuqahooda mana ayan helin waxyaalaha asaasiga ay u baahnayeen sida daryeel iyo barbaarin wanaagsan waxbarasho iyo caafimaad inta badan caruurta ayaa loo adeegsadaa horinta colaadaha ka jira dalka ayadoo loo isticmaalo askarayn iyo inay qabtaan shaqooyin culus
qaar badan oo ka mid ah carruurta Soomaaliyeed waxa ay ku dayacan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka ayagoo qabta shaqooyin adag oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda sida lagu daawacay warbixin ay qortay hay'adda u doodda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch. maxkamadaha military ee magaalada Muqdisho iyo qaybo ka tirsan gobolada dalka waxa ay si sharci darro ah xukunno ugu ridaan carruur taa oo ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ee maxkamadaha. warbixinta hay'adda oo soo xiganaysa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 64 carruur lagu riday xukunno sanadii 2016 iyadoo inta badan xukunnadaasi ay warbixintu sheegtay inay dhaceen kadib markii ay shabaab weerar ka geysteen qaybo ka tirsan Puntland iyo Galmudug xilliga oo maxkamad military ay bishii June 43 qof oo la xiriirinayay shabaab ay ku riday xukunno dila iyadoo 12 ka mid ah dadka xukunka lagu riday aaminsan yahay inay ahaayeen carruur sida laga soo xigtay qaramada midoobay. Soomaaliya waxaa ka dhaca falal badan oo lid ku ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan aasaasiga ah ee shacabka Soomaaliyeed ku dhaca. inta ugu badan xadgudubyadaasi waxa ay ku dhacaan dadka rayidka ah oo dil loo geysto, kufsiga haweenka iyo askaraynta carruurta yaryar. haddaba si aynu arintaasi wax uga ogaano waxaynu ka wareysanay Maxamed Cilmi Maxille oo ka tirsan hay'adda isku xirka iyo nabadda ee INHA ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. hay'adan horta waxa weeye waa hay'adda inta jirta Soomaaliya hay'adda ugu ballaaran ee Soomaaliya dalka marka Soomaaliland laga reebo dhammaantii degan. sidaas marka haddaba ay noqoto waxa ay inta u ballaaran tahay waxa weeyaan hawlaha xuquuqda aadanaha dhammaantood weeye. dhammaantood markaan leeyahay waxa weeye tacadiyadaas waxa weeyaan dhowrista xuquuqda aadanaha guud ahaan waxa weeyaan muxuu ahaye dhisidda nabadda waxa weeyaan muxuu ahaye wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed in nabad iyo dhismaha qarannimada loo soo jeesto meeshay ku jirta nolosha waa meeshaas. intaas oo baaxadaas leh ayaa hay'addu waxay soo waday muddo imka ku dhow 23 sano ay soo waday. kaalmihii ay ka soo gashay wax ay aad iyo aad caam u ah waaye. meel aad iyo aad xilliyo aad iyo aad u darayd bay soo martay. xilliyo dagaal xun ee magaalada khaasatan ay magaalada ka socdeen ay soo martay. xilliyo oo dagaal xun oo siyaasadeed u ahaa. xilliyo uu ahaa dagaal qabiil ay soo martay. waxay aad iyo aad isugu soo dhibtay oo u dul qaadatay oo iyadaba tacaddi lagu sameeyay in ay kala dejiso ama ay ku guulaysato inay wacyigelin ballaaran oo wax tari karto inay ummadda Soomaaliyeed geliso. waxaan soo fariisinay dadkii oo mar aad ogeydeen oo muxuu ahaa dagaal ogayaashay soo martay. dhibaatadii aan ka soo marnay waxa weeyaan si aan uga joojin lahayn dagaalka, sidaan hubka uga dhigi lahayn, sidaan ugu sheegi lahayn iyagu inay wada hadal wax ku qabsadaan haddii xataa ay yihiin dadka magacaas loo bixiyey oo ay ka gudbaan oo u gudbaan mid nabad wax lagu qaybsado. maxaa lagu tilmaami karaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jirka dalka Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dhexe ee ka dhacay dalka? intii burburka ay ku jirtay haddaan dhahno waxay ku soo martay Soomaaliya xaalad aad u daran bay soo martay. xaalad dad aan waxba galabsan oo ciidda ka badan ay dhinteen ay soo martay. dagaal qabiil ku dhinteen ay soo martay. dagaal siyaasadeed ku dhinteen bay soo martay. dagaal diimeed ku dhinteen ay soo martay. wada siyaasad weeyaan labadaasiba. waxay soo martay abaaro inta oo 90 jirka aanu sheegi karin mid la mid ah ayay soo martay. waxay soo martay laba abaarood oo isdaba jooga ay soo martay. waxay lumisay qaankii ama aarankii qarankan u ahaa muxuu ahaa hantida u ahaa ay lumisay oo soo dhintay, dagaal ku dhintay, abaar ku dhintay, gaajo ku dhintay, cudur ku dhintay, intaas oo dhan ay soo martay. dhaawaca soo gaaray Soomaaliya 27 sano lama qiyaasi karo. xilliga burburka waa sidaa. inta ka dambeysay xilliga burburka waxaan ku ekeyn karnaa intii 12 ilaa wixii ka sokeeyay ayaan ku ekeyn karnaa. xilliga burburka intii ka dambeeyay waxaan u soo baxnay heerar oo ay degeen, ay hoos u degeen wixii dagaaladii ugu waaweynaa oo dhimashada badan iyo barakaca badan iyo dhaca badan
iyo hanti burburinta badan soo mari jiray ayay soo gashay xilli ay hoos u degeen hadda in maalinba maalintii ay ka dambeysay ilaa maantada aan joogno waxaan dhihi karnaa waxaa laga soo baxay dhibaato aad iyo aad u daran waxaana loo soo baxay heer maanta wanaagsan run ahaantii markaan sheegayno ama ninkii indhaha ku hayay sawirrada aan hadda soo sheegnay marka loo eego heer aad u wanaagsan aan joognaa waxa naga dhiman waxa weeyaan inta maanta baahideennu maanta haddii la qiyaaso waxaan ka soo baxnay tii oo baahida degdegta ahayd ee la hoobanaya waan ka soo baxnay baahidii caadigiina u soo baxnay baahida caadigana maanta waxa weeyaan baahida Afrika haddaa la qiyaaso ama dalalka soo korayaan la qabnaa meel oo hadda waxaan joognaa xagga haddii la eego wanaagsan oo aad iyo aad uga fiican alxamdulilah la dhihi karo weeye ma jira xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo hay'adiina inxa ay diiwaan gelisay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya wax badan weeyaan waa badan yihiin ma dhacaysaba inay wax dhacaan oo shaqooyinku waxa weeye wixii dhaca inaanan la waayin diiwaangelintu macnaheedu waa sidaas wixii dhaca in raadkiisa la hayo intay hadda dhacday ogeydinba soo ma jirto 512 meesha hadda agteena soo hal daqiiqo gudaheed kuma bixin waa wax la diiwaangeliyay cidii muxuu ahaa loo soo baaray oo yeelatayna waa wax loo diiwaangeliyay maxaa ka mid ah waxyaabihii aad diiwaan geliseen oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha waxyaabihii ugu waaweynaa waxaase hadda waxa weeyaan wax oo nidaamkeega sugi doona wax hadda sidaas faahfaahin hadda caseska saasa oo loo geli karaa ma jiraan yaa ku kaca xadgudubyada ugu badan ee ka dhaca dalka ka baxsan xuquuqda aadanaha xadgudubyada markaan soo eegno kuwii hore ee soo socday markaan dhinaca dagaalada ka reebno waxaa ku kaca xadgudubyada khaasatan dadka haweenka ku dhacaya waxa u badan dad aanan caqligooga ama damiirkooga wanaagsanayn iyaa ku kaca dadka ka fayow caqliga iyo damiirka tacadiyada qaar kuwaasa kuma kacaan haddii dhinacan loo jeediyey waxa weeyaan dadka ku kacaya waa dad muxuu ahaaye leh muxuu ahaa dano kale ku kaca waayo dadka inta badan geysta xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha inta badan waa la garanayaa soo maaha haddii la yaqaaniyo haddii kalaba waa wax jiro waay qaaran laba garanaynaa jiro kiisaska qaarkood aan laba soo baari karin la jiro lagu diiwaangeshan yihiin xilligooga haddii seegaanna wax weeyaan diiwaangelinta waxay noqonee rikoorkaasi wuxuu u baahan yahay in la furfuro maxaa hor taagan in la soo bandhigi waayo amaba la diiwaangelin waayo dadka geysta waxa ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waxa weeyaan xilliyadaan suuragelin goobahayna ku suuragelin habka uu u dhacay iyo xilliga u dhacay bayna ku suuragelin xadgudubyada iyo nabad darrada ka jirta dalka Soomaaliya ma la dhihi karaa waxay qayb ka tahay baaritaan la'aan ku timaata xadgudubyada xuquuqda aadanaha ammaanku waxa weeyaan xagga ammaanka maaha waxa weeyaan xagga waqtiga haddaan ku idhaaho waxa weeyaan xilliga u dhacayo xilli oo loo baahan yahay macnaheedu haddaan qiyaasno kuwa ka dhaca muxuu ahaaye barakacayaasha dhexdooda kuwa ka dhaca xilli xunay dhacaan dadkii waa la cabsi geliyaa rikoord ma haystaan rikoord waxa la yidhaahaa haddii qofku sidaa kuu soo fiiriyo ama uu si fiican kuu garanayo haddii 10 qof aan soo joojiyo uu ku garanayo ama magacaagu garanayo ama calaamada hadduu rabo inuu kaa reebi karo waa dad aan samayn karin kuwaas xilliga ay dhacayaan iyo meeshay ku dhacayaan jaanis ma aha in la soo baari karo inta ugu badan dhibaatooyinka waxay ku dhacaan dadka rayidka ah mararka qaar waxaa dhacda in la dilo amaba kufsi loo geysto haweenka amaba hantidoodii la dhaco haddaba dhibaatooyinkaasi qayb ma ka qaadan karaan nabad darrada dalka ka jirta inta haddii la qiyaaso kuwa dambe haddaan ka soo qaato waxa weeyaan saameyn bay leeyihiin bulshada maalintay soo mareenba saameyn toosay ku leeyihiin maalintay soo mareenba saameyn toosay ku leeyihiin laakiin haddaan fiirino yacnihii xaquuqaha maqan waxa weeyaan xaquuqo oo xilligu saamixin maaha meel ay ku maqan yihiin oo laga soo goyn karayn ma jirto waa dambiyada la galo kuwa ugu badan oo haddii la qiyaaso xilligii aan soo marnay haddaa dib loogu noqdo waxa weeye kuwa ugu badan waaye kuwa ugu badanna dadkii samaynaya iyo sharciga in ay intii ninkii keensan kara oo rikoorkiisa samaysta ama kala tashada haddii hay-aduhu aynay gaarin kala tashada dad baa samaysta rikoorkooga
oo noola yimaado oo kayska ugu rakibna si uu u socon karo maxkamadda u socon karo dad sidaas way jiraan iyagu samaysta haddaanu isagu samaysanayn dee muxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay saameynteeday leedahay isaga ku leedahay noloshiisay ku leedahay futurekiisa ama mustaqbalkiisay ku leedahay hantidiisay ku leedahay waxa waaye kuwa fuliyey waajibka ay qaadeen oy u magacaaban yihiin doorkooguna uu yahay xilliyada xun in ay wixii ay u samayn karaan bulshada oo u qaban karaan dadka wax soo gaaraan inay sameeyaan xilligooga haddii la eego xilliga xun ay ku samaynaa haddii la eego sida ayagu u yihiin oyna haysan muxuu ahaa wixii qalab aasaasi oo badan oo ku qaban lahaa heesaa shaqada ku qaban lahaa xilliguu qaban lahaa oo xilli xuna amnigiisa oo aanan secure ahayn ama sugnayn intaasoo dhan uu ogol yahay haddana inuu ku shaqeeyo ciddii gasho sharci ahaanba waa sidaa ciddii gasho ayaa mas-uuliyaddiisa leh haddii la fiirsho xagga dowladnimada haddii la fiirsho mas-uuliyadda iyagu ay xagga dowladda ku leedahay waxa weeyaan inay muxuu ahaaye xubnihii qarankaas hawsha u fulin lahaa inay keenaan waxaa ka mid ah muxuu ahaaye law enforcement waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah oo goobihii iyo maxaakimtii iyo intaasi jiraan iyo booliskii law enforcement booliskii weeyaan intaasi hadday jiraan xaggan way ka dhisan tahay xaggan ciddii mas-uul ka ahayd waxa weeyaan cidda gashay sidii loo helana meeshaan halkaanu maraa xukunu maraya cidda gashay haddii la waayo muxuu ahaa sharci ahaan waxa weeyaan dawlad hadday jirto waa iyada laakiin waxaa caawimada leh maanta waxaa caawimada leh hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha caawimay ku leeyihiin iyagaa ku labaa laakiin sharci ahaan markaan eegno dowladnimo aan eegno wixii dhib dhaca intaa ay dowladdaasi mas-uuliyaddeeda qaaday dowladda iska leh wixii caawimo ay u baahan tahay waxaa ku soo xiga hay-adahaas oo iyagu u farsamaysan ama u cilmi leh waxaa ku soo xiga bulshada waxa weeye waa waxaan laga gudbi karin waaye waa shaandho ballaaran oo dhex socoto wixii warahe dhac oo dhan iyagaa laga soo helaa iyaguna waa inay soo caawiyaan hay-adaha oo xukun fulinta ka shaqeeya wax ma nooga sheegi kartaa xadgudubyada ka dhanka ah ee haweenka oo badanaa loo geysto mararka qaar waxaa dhacday in lagu xadgudbo jinsigooda aad iyo aad bay u xumaayeen markaan fiirino xilliyadii aan soo dhaafnay markaan fiirino xilliyadii weliba sii horeeyey oo 10 sano oo adaan kala qaadno 2 grade 10 sano ku eg aad bay u dareed 20 sano haddaan soo gaadhnana waxay soo gashay xilliyadii noogu badnaayeen dadka oo soo barakacay xilliyadan ayayna dhexe ayayna ugu badan yihiin 10ka saddexaad intaynaan soo gaadhin xilliyada ay ugu badnaayeen oo ummaddaasi lagu tacadiyo waxa weeyaan xilligii abaaraha oo la daadsanaa waxa dhacay tacadiyadii ugu badnaa oo soo gaara haweenka dadka aan damiirka lahayn oo dhibaataysan iyaana geysanayay wixii imika qof uu samaystay muxuu ahaa dambaaristu ma aha inta oo booliskiya loo yaqaano maaha dadka kayska ku dhacay ama dadka dhibtu ku dhacday ayaa ah inay kayska dhistaan inay rikoorkooga qabsadaan siday wax u dhaceen siday tahay inay markaaba diyaarsadaan oo haysan karaan mailkaagaa dhiganaysaa xilligaa rabtaa la soo baxaysaa waxaad u baahan tahay un la tashigiina dowladaa kuu joogta maxamed cilmi waxa aad ka mid tahay dadka markaasi u dooda xuquuqda aadanaha hay-adda inxaa sida aynu ka warhayno fadhigeedu waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho haddaba maxay tahay waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ay intii aad ku guda jirtay howshaani oo aad la kulantay oo xuquuqda aadanaha ka dhan ah xuma wallaahi waxaan soo arkay waa badnaayeen laakiin haddaan fiiriyo waxa weeye tacadiga ku yimid gabar yar oo 2 jira igu dadnayd yaa igu naxdin badnayd degmadaas Boondheer aan ku arkay taas tu ka daran ima soo marin aniga intaan la kulmay tu ka daran oo ka naxo ima soo marin dilka waan soo maray waa la kufsaday dilka waan soo maray oo rag iyo haween bale waxaan soo maray muxuu ahaye waxaan soo arkay muxuu ahaa gabdho waaweyn oo weliba oo kubsiga weliba kala sahlan yahay dhaawacyo saayiday ay raaceen oo noloshoodii ay ka qayb qaateen inay baabiyaan
intaas waan soo arkay waxa dhanka kaale gabadhaas yar wax iga naxdin badnaa oo aan la soo joogsaday ma jirin guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeennii qaybtii koowaad oo aan uga hadlaynay xuquuqda aadanaha iyo dowlad wanaagga qaybta xiga ee barnaamijkeenan taxana ahaa waxa aad ku daawan doontaan haddii allaha awoodda la ogolaado wareysiyo aynu la yeelan doono maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inta aynu barnaamij midkan la mid ah mar kale hawada ku kulmi doono waa aniga iyo bahdii igala qayb gashay barnaamijka oo idin leh nabaadiino nooli kulanti leh